حرسي حكومي وكنت الحكومي إن قليل إما كان محمود حاسب وكنت الحكومية فرطون وحنا كنا عطينايا دمرك ولا محايدين إن قليل شغل بنا كمان جوا شرين محمود وكي تيفي اللي قلت شيء شغل بنا كل عرفاي murankaasi ma la oran karaa wuxuu sababi karaa arrimihii hore ahaa mudaharaadadii buurihii la fuulayay iyo rabshado kaleba dalka uu ka abuuri karaa oo dagaal ka mid yahay waxaa khadka si toos ah ugu jira Ibrahim Caydiid gudoomiyaha ururka Suudi Gaashaan oo ah urur ka shaqeeya danaha Soomaaliland oo qurba joog badan gudoomiye ku soo dhaw Cable TV waan dhawahay Axmed Doolow adiga iyo Cable TV waa salaamaya iyo asxaabta dhageysan doonta waan isku dayi doonaa wixii su'aalo hadda taagan ee ka jawaabi karo way gudoomiye anagoo kaaga mahad celinayna waqtigaaga qaaliga bal ugu horeyn waraysiyo kala duwan ay bixiyeen madaxweynayaasha Soomaaliland iyo Soomaaliya bal waraysiyada iyo hadaladoodiisa kula muuqdaan runtii labada waraysi waan dhageystay madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo laba waraysi kala siiyay telefishinada caafimaad ku hadla haddaan ku horeeyo labada madaxweyne runtii waa laba madaxweyne sidii madaxweynaha ku noqdeen ay kala duwan tahay taariikhdoodu kala duwan tahay haddaan taariikhdoodu ku horeeyo sidii ninna wuxuu ka soo bilaabay sarkaal buu ahaa dowladii markii midowga Soomaaliya jirtay ka garooday wixii dhacay xaqdarradii dadkiisa oo isagoo sarkaalnimo ku haysta dowladii markaa jirtay oo madax ah oo sarkaal sare ah ka carooday oo markuu Mareykan tagayna soo ka shaqaysan karaya oo dadku dawlad u jeclaa qorbaha loo shaqo tagay halka ka shaqo gali karaya haddana damiirkiisu sii waayay inuu shaqaysto iyo sarkaal sii ahaado oo meeshii Axmed Taalay ee Itoobiya maqaaxi yimi halganka naftiisa ku biimeynaya galay ku guuleystay ilaahay ku nabadgeliyay ku guuleeyay maanta halgankii wali ku jira oo dalkiisu ka baxo halku doonaya gaarsiiyo wali gacanteedii ku jira oo maanta ay muuqato inay fakti marayso arrintu وكا تنكله هذان شيء كوكل مدحونا كنا نقدر لبضنا كلا كهضمو من دور بقولوا قفوا ولما الكليشين يا رب مدحونا كنكتي منه مدي سيبا دورته وين ما وين فوت بكوين مركارت ولا بدأ مدحوينه هذان وهذا اللي استوتاعه مدحوينه حصل الشيخ إلا ما أنتي شيء كلمة الدولة الصومالي لاني الصومالي من إثيوبيا أي قاعدين شيء كقبيلة هاي اسمها كهولة وحمو ريبا وحكستو aan diblomaasiyada ka baxsan dhaqaaqay halkii ugu dambeysay bini'aadan gaarigu gaaray yani uu musanaabay uu dagaalamay madaxweynaha Ibrahim Sheikh Ethiopia iyo ay dawladdiisa isagoo ah ku sheegeen waxay doonaan dawladda Ethiopia ku sheegeen mid ma garanaysaa argagixisada lamida Soomaaliland bay sidoo kale ku sheegeen waxba may reeban shacabkoodii dawladda sikradiisii markii dambe safar u galay Eritrea ku tagay مصر وكتشي وحصوه هو سفرنا وحكسوه هو هذا اللي كل جودرنا ورنكرا نقول وحكسوه صورة قرين بتشرو أما وتغيركوا هلاي الدبلوماسيات يمد أيضا لما لو اسكت يمد أيضا يمد الدبلوماسيات ولا وحروق الشيء مصر بالحين مصر وداول يسوق تصارحوا سوق عطي ودك كيس الله ما يقولها نقولنا شو كوا صومالي أو كله أما دولة الصومالية بربرتي ما تعلموا تأتي بدون قولي ذا يسوون اللي بكره عليك اللي بهتلي ولا إذا هيك حمان صاحب كيو تخي الله ما ياه ولا ذلك يسكوا علينا إلى دولة نور يارتلان ونسمع يبربركو وبربركو فودي هاي نسمونا عليه يعني أص أيوة شو يدين ما وحبوا تيبو إثيوبيا كعرية وعن شارك كويس الله هاي عرب هاي مسلم كا أحط كحدي فلسطين وليبيا أكتيس تاي ومن ده وحبته أسرائيل أكتيس ومن ده وحبته أيوة رحوا إسرائيل كنت رحت راسه النقدي تيسوا شدي وسرسر تيسوا كده وريش يأخذ بالدنيا مركو فرماسوا أقوى من هاي شيء إنه دكذي وهاي إثيوبيا كارا نتفسو وحبنا أقوى هاي هذا إن لما ويجوا شوية يبن هذا مرة بربري تاسو قف wixii uu muujiyo runta waa nafta shalay ayuu muujiyay habeen hore shalay muujiyay oo ah Ethiopia noo kaalina qabshin nabadda Soomaaliland anaga wax walba ku sameeyna ku farsamada samaysan waxa ku leeyihiin in xaq oo gobonimo haya oo dalkiisa jooga oo ay dadka arrin wada galayaan sheegaya
oo ciidanka ilaalinaya kiisii yahay ka kalena ciidanka ilaalinaya masaajidkan uu naga soo caayay xitaa ku ilaalinaya kabaan la galaa ay yihiin ciidamo ajnabi oo brandisa dee labadan nin bay ka ahaayeen xigmadda meesha ku jirta weeyaan inuu madaxweyne xasan sheekh wixii u hooseeyey ee runta ahaa shalay sheegay oo ah inaan Itoobiya badiyo dhultoona u diidanaynin in Somaliland u diidan yahay oo ka soo gudoomiye Somaliland iyo dadka gobolka Sool ama Khaatimo ku sugan dagaal baa dhex maray weli weli lama hayo ciidamadii way soo fadhiyaan isbedelada gobolka dagaaladii halkaasi ka dhacay iyo balaadu arrimahaas ee aragta waa runtaa dagaaladii ka dhacay dee weli lagama heshiin ciidamadii oo soo fadhiyaan isbedelkan gobolka ka dhacayna saameyn weyn ku yeelanaya isbedelka gobolka ka dhacay waxa weeyaan dadka waxa lagu dagaalgaliyo loo sheegay inay dawlad gaar noqonayaan Khaatimo la yiraahdo oo Somaliland ay ka baxayaan Puntland aanay noqonin saas lagu dagaalgaliyo tii waxay noqotay way ku goobeen been bay noqotay waxa muuqatay in 17 xubnood iyo madaxweyne ku-xigeenkiiba oo ay Puntland wax ku yeesheen maanta gaariga la saacad ka bixi karo halkaas la dhigay wala cashuuraya markii Puntland baa xoraya oo balka sabab ka hadli kareen madaxweynihii ku-xigeenkii iyo xubnihii baarlamankana waa loo xulay oo kamid yihiin Somaliland ka tagay isbedelkan ka dhacay gobolka Soomaaliya iyo gobolka iyo adduunka ka jiriyay labada heshiiska labada dawladood Somaliland iyo Itoobiya saameyn ku yeelanaya Somaliland la soo ilaalinaya dhawaan ay kamid yihiin gobolada deegaanadaas dagaal ka dhacay waxay ila tahay marka in heshiiskaasi markuu dhamaaday ictiraafkaasi inay nabad dhalan doonto oo ay dhulkooda ku soo noqon doonaan oo cid u dhaantay iyo meel u dhaanto ay hayaanba aanay jirin Puntland aanay meel geynin dalka la ictiraafay ay ka mid yihiin iminka ogaalkii xisaa waxa la sheegay in garaadada Itoobiya ay casuntay oo dalab loo soo diray oo isku haystaan ay tagno taasaan arrintooda nabad soo waxaa jirta dhalinyaro shalay toole warbaahinta la hadashay oo ka tirsan urur siyaasadeedka ka waxay sheegeen in Ibrahim oo adiga ah uu saameyn ku leeyahay sirdoonka sidoo kale waxay dhaliilo u soo jeediyeen madaxweynaha Somaliland bal arrimaha iyaga maxaad kaga jawaabaysaa dhaliiluhu waa iska daruuri oo dhaliilo qof run ama hada ama been hada uu soo jeedin karaa nimanka hadlayay dhalinyarada hadlayay qaar caan oo wada yaqaan baano tiimkii Maxamuud Xaashi ayay ahaayeen kuwa dawladda ku naaxay ee ka shaqeyn jiray ee soo warin jiray ee markuu xafladaha ay marayeen saacad ku garaaco marka uu soo baxay markuu sii baxay sawira jokerka ee saacad ku garaacay haayeen oo qaar garanaysa aan la aqoon ma ahayn inay qiimeeyaan xaq u lahaayeen oo ay Maxamuud Bahiis ku gaaro kuwaaday markii aan ku dhaliilay hawadii maalintii dhaweyto aan ku dhaliilay iyo waxyaabo badan oo jira marka niman isagu soo diray bay haayeen haddaan soo noqdo sirdoonkan ay ka hadlayeen sirdoonka hortii 3 bilood buu jiray hortii anigu deewaan jiro 6 sanadood baan hadlayay oo waxa qarsoon oo dadku aan ogeyn aan ka hadlayo dhici jiray maalmo sirdoonkan ay ka hadlayaanna wadanka la sirdoon baa isku dhaxaysta xaqii markuu ku soo kii Fahad Yaasiin iyo dadka uu samaystay iyo kuwa nisada maanta u shaqeeya iyo kuwa Somaliland baa isku dhaxaysta marka kuwa sirdoonka kale u shaqeeya ayaa dalkiisa u shaqeynaya wax badan oo dadku ogaanaya cadowga marka anigu sirdoonka ninka madax xukumo uma shaqeeyo saaxiib baan isaga iska saaxiib baan jamhuriyadda saaxiib baan wasiirada saaxiib baan mid walba waa ku xidhnay bulshadu waxay isweydiinaysaa waxa eeba ninka bayr qaataa cid kala ku xidhan inama samaysay waa Fahad Yaasiin hadii alla ku urmay gudaha ka shaqeynaya sirdoonka Soomaaliya la shaqeynaya iyo Cabdinuur iyo Mahdi Guuleed waa in adeerkaaga markuu wax sameynayay tuu la soo xiriiray baan ee ka diiday inuu lacag qaato oo dalkiisa hadii alla ku urmay dabadil fu noqdo dalkiisa ka tuuro isagoo magac ay ugu soo galayay in adeernimo marka in adeerkay haddaan anigu lacag qaadanayo kaasoo lacag ka qaadan la geesiban xaafadayda ka noqon la waxaan diiday oo damirkii ku shii waa inaan been sheego dulmina ku raaco gardarana ku raaco wax wadankayga burburinayna iska u soo qaato shil lama dhaafso wixii aan diiday ninka qaatay dee ka aamusimayo waan sheegaya marka waxa isku haysta wadanka sirdoonka Soomaaliya iyo Somaliland ninka Somaliland raacaan dee ma ceeboobi dabadilifka iska soo taasi sirdoonka Soomaaliya ee Somaliland ka shaqeeya
halkuu joogaa sayuu yahay dadku bulshadu aad bay isku weydiinaysaa wararka aad sheegayso wuxuu ku dhex jiraa oo laga dhex samaystay saxaafadiina laga dhex samaystay waxaa laga dhex samaystay gabayaageena hogaamiye dhaqameedkeena waxaa intaba sida u shaqeynayaan bay ka muuqataa marka basaas ama shirdoon la samaysanayo la oran maayo hebel waa basaas lagu shaqeeya waa qof miinad ku shaqeynaya ayaa lagu dhex qaranaya shaqadiisii marka in badan baan waan ka aqaanaa wax kuwa qaylinayaan waxay ka qaylinayaan kuwa cidda ka shaqeynaya baa qaylinaya tuuga waxada askariga waa la halkaa markuu marayo suuqa askarta uu arkaya intaa oo dareenkiisu taagay laakiin adigu markaad ka socotaan waxba xadayn askariga ku weeraraya kabeesho kaamay midna dadka ku soo kuma joogo xabada isku ogi laakiin ka qaylinaya waa intuu isku ogaaw laamaha amniga waddanka ka qaylinaya waa kii cid kale u shaqeynayay gudoomiye saxaafadii baad eedaysay waxaad eedaysay abwaanadii dadkii oo dhan waad eedaysay xogahan adigu halkeed ka keentaa sarkaal sirdoona ma tihid bal xogahan adiga ayaa ku siiyey ibrahim anigu saxaafadda ma eedeynayo saxaafaddu eed ma wada yeelan karto macallimiinta ma wada eedeyn karo ciidamada ma wada eedeyn karo waa in ka mid ah qofka ku dhaa saxaafaddana 4 qof iyo 5 qof iyo 10 qof ma sheegan karaan way ka badan yihiin marka inta badan waa inta wanaagsan laakiin inta aan eedeynaya waa inta la yaqaana ee la shaqeysa ee bareeraysa ee ay muuqato ficilkooda haddaan usoo noqdo su-aashadii xogaha ayaa ku siiya xogaha lagama helo sirdoonku maaha mid samada ka soo degay isagoo sirdoona waa bini aadamkan uu ka mid yahay annagu markii aan aragnay dalkaygan weerar lagu hayo oo kuwii u dhashay ay cadow usoo raacayaan oo lacag ku fangaraynayaan aan la qasayn ayaanu samaysanay urur sodowciina dhowrku muu maraya ururkayagii dhowrkaa kun maalin walba warbay soo qaadaan tabarina ku shaqeeyaan lacagtooda aan bixin lacagtooda isticmaalnaa waxaan aaminsanahay inaanu haddii alla kuu rumeeye ka xoog badan leh cid walba maalin walbana waa lanoo jooga caawa warsharaadka ka socda gadar ee lanogu tushanayo kuwa somaliland ka qayb galay iyo fahadka fadhiya iyo inta ku fadhiya intaba warkeeda waanu haynaa meel walba sadoo noo sheegana ma jirta annagaa weliba gaarsiina laamaha yaga dowladda kolba cidda ama military ha noqoto ama police ha noqoto ama madaxda ha noqotay marka waxaanu shilinta ka gurno soo shaandhayno oo isku hubno ayaanu sheegnaa beenaan ku talagalayna propaganda kama dhigno beenta propagandada Soomaaliya u kala qaybinay wada dagaalamaya oo fashilina runta aan isku soo hubsanayna waanu sheegnaa haddii alla kuu roon yahay beenaan ku talagalayna lagama yaabo inaan sulit xataa oo bini aadam baa war idina siisay inuu qawl ka iman karo oo dhici kara wada ilaahay ma qaldan laakiin midaan ku talagalay lagama yaabo inaan sii deeno sidaan warka ku dhawaanaa dad waxaan la organization lacagtiisa wata oo ku walaaloobay Somaliland dad badan waxay qabaan oo weliba ha ahaadaan xisbiyada mucaaridka ama dad kaleba ha ahaadaan oo ururada ka mid yihiin in madaxweynuhu doorashadii doonayo inuu dib u dhigo oo muddo kordhin samaysto oo doorashadii ila meerayso iyo dib u dhacay gasho bal arrimaha aad u soo aragta waxaan u arkaa runtii waxa xaafadaha laga hadlayo iyo waxbarashada loo sheegay iyo xaqiiqda waa kala mar walba haddii alla kuu roon yahay waxaan u arkaa in arrinta doorashadu mar walba xagga ay ka imanaysay ama ay wax ka qaldamayeen ay tahay xagga xisbiyada mucaaradka sheegayso ayaan aaminsanahay ilaa markii guddidii doorashada hore qabatay doorashada iyadoo cisaan dacweyn la yiri doorashada loo qaban maysa la bedelo murankii ka bilaabmay iyo markii dambe riya raac murankii ka bilaabmay oo sanado qaatay doorashada dib u dhigtay markan dambe xisbiyada waqtigooda dhacay la yiri ururada la furaya ee diiwaangelin la sameeyay ee guddi diiwaangelin la sameeyay ee urur la sameeyay tacabka inta la galay iyo waqti dagaal ka dhacay la diiday la yiri maya doorashada wuxuu la gali maayo iyadoo waqtigii la inoo sheegay oo dowladdu diyaar garooday oo lacagtii diyaarisay oo kuwa shakil la sameeyay waqti dib loo dhigay mar walba dib u dhaca wuxuu ka imanaya xagga mucaarad wixii ay ku dhaqmi jirnay Soomaaliya ku dhaqmi jirnay ka warmay hataa maanta sidii baa u arkaa inay dib u dhac keenayso ayagu ay dib u ridayaan because waxaan ogeyn doorasho isa saaro sida ku timi aynu ogeyn oo niman guddiya oo weliba dhinac inay yidhaahdeen doorashada hala isa saaro oo la qaatay oo madaxweynuhu ka aqbalay iyadoo qalad ahayd oo commission iyo maxkamad aynu leenahay khilaafka sharciga yimaada aynu maxkamad u leenahay commissionna aynu leenahay nimaan intaaba ahayn inay nagu soo dhex fugaan wixii la qaatay golaha baarlamaanku uu qaatay wakiiladu
qaateen guurtuna way la qaadatay madaxweynuhu wuu qaatay sida xaabka mid kara waxa la diidan yahay waa wax kale ay ku darsadeen golaha wakiilada cidda ku dartay oo maxamuud xaashi oo golihii banaanka ku dhaarsanay shaar uu leeyahay loo too oo isaga xisbi uu leeyahay qasab lagu soo saaro oo la heshiinayo waxa loo tirayo kuwa kale ee la midka isa saaran iyo saddexdii xisbi inay galaan waa isla qaatay marka dadka soo qaanka u sheegaya waa dad ujeedooyinka waan ka jawaabaya xeerka gudoomiye muran baa ka dhashay golihii imka guurtida lagu soo celiyey murankaasi ma la odhan karaa wuxuu sababi karaa arrimihii hore ahaa mudaharaadadii buurihii la fuulayey iyo rabshado kaleba dalka uu ka abuuri karaa uu dagaal ka mid yahay horta waxa dhici doona ilaahay baa yaqaana bini'aadamkuna markuu isqabtay arrin isku qabto ma wada qaldanay mid walba qaldan qaladkana waxaa leh ninka dadka wax magaratada iyo masaakiinta wax badan aan ogeyn beenta u sheegaya ee leh doorasho la diiday iyo cidina doorasho lama diidin qodobo dastuuriya ayay isku hayaan labada gole sayaan oo golihii guurtida iyo golihii wakiilada labada gole ee baarlamaanka la isku raacay guurtida iyo wakiiladana waxa gudoomiye oo sareeya golaha guurtida labadii gole hadday isqabtaan dastuurka wuxuu marnaa wandariiqi la maro marka cidda loo sheegaya waxaanu leenahay waariyaan biyo la idiin sheegi doorasho saddex xisbi kale waa la isla qaatay xilligeeda waa la isla qaatay waqtiga iska kalumina wax bilaa macna ah haddii waqtiga uu saa dayan uu soo bixin midna waxba ka xumaan maaya waqti dambe la kordhi doonaa dana leen dowladda noqon maayo marka waxay danta ku jirtaa inay aqbalaan oo ayagu aanay meeraysiga ay joojiyaan iyo indhaskatirkan ay sharciga iska dhitrayaan gudoomiye shalay golaha wakiiladu waraaq buu qoray xogayaha guud ee golahaasi baa akhriyey gudoomiye faratoon baa ku saxeexnaa taas waxaa sharci darro lagu tilmaamay inuu madaxweynuhu soo celiyo xeerkii oo uu ku celiyo golihii guurtida waxaa jira warar kale oo warbaahintu helaysoo sheegaya in golihii wakiiladu ay wadaan maamuska xayuubin iyo arrimahaasi bal arrimaha maxaa ka dhici kara baad isleedahay ama maxaa ka suurogeli kara runtii waan dhageystay warqadii uu akhriyayay xogayaha golaha wakiilada in ayaan leh waxaanu deedifayey markii ugu horreysay uu qoray cali xaamud oo yidhi warqad soo jiray baa mafaasa ah sumad iyo shaabatoona aan lahayn yani mas-uuliyad darro weyn bikaastay markii cid walba ay gaadheen way ogyihin waxtooyadu way ogyihin golaha wasiiradu way ogyihin mucaaradka inta waaweyn oo dhami waa wax la ogyahay oo uu sameeyey tii iyadoo oo lagu jawaabay baa lagu yidhi habeen hore ma geli kartid waxtooyada laakiin gushibadoon kale oo iman karaan ninka lagula giire iyo faratoonba aradii uu ka qaaday ayuu warqadaa fuujirigaa sameeyey warqadii fuujirigaa wuxuu ku caddaynaya isla golihiisi ceeb baanay ku tahiye mas-uuliyad darro maalin dhexdiiya niman odayaasha gadabursi oo mutacalimiina oo ku shiraya hargeysa oo istirxaan bixinaya iyagu ayuu intu sawir la galay uu ka dhigay inay arrimaha badda ka shiraya gadabursi saas ugu dhigay yacni ninka kursigii ugu sarreeyey ee saddexaad fadhiya ee baarlamaanka ee sidaa غير المسؤول وعي انت تدخل خليك سؤال لو يعني waxa taas ka liftay hadaan soo noqon su'aashi gudoomiyaha wax su'aasha ka baxo gudoomiyaha golaha wakiilada warqadii ku saxiixnay ee uu madaxweynaha ku amriyay waxa ka muuqatay amar waxaan aaminsanahay ninka la faratoon in warqadan in gudoomiyaha runta ah ee golaha wakiilada ka gudoomiyaha maxamuud xaashi ee aaminsanahay oo faratoon uu yahay nin baqanaya markii ku dhawaad konton iyo in ka badan lagu shiriyay banaanka waa maxamuud shirinaya inuu istusay in golaha laga qaadi karo gudoomiye kala rabo loo dhiban karo sidaa daraadeedna aanu ka hor iman karin wixii wanaagga laga soo furo markaa nin la soo faray oo la balgareeyey oo aan hadli karin inuu warqadan shaabadiyey ayuu baa iga muuqataa waxaana kalifay banaanka raggan tirsanaya inta lagu tirsado lagu shiriyo dee magaranaysa lagu soo dhibiyo afkaaraha dee ragga banaanka soo dhigaya marka faratoon iyo golihiiba waxa aftuuray maxamuud xabsi oo karaa waxaana ku baqagaliyay ragga banaanka lagu shirinayo warqadaas warqadan kuma dardaarmaya amarka uu madaxweynaha siinayana socon mayso waxay noqonaysaa arrin labada gole isku hayaan sharci taana xeer bay nagu yaalo
waxa fasiri kara uun markay isqabtaan maxkamadda dastuuriga ah haddii ay sida warbaahinta qaar qorayeen haddii ay ku hanjabayaan maamuska xayuubintu wax 40 nin ama 50 nin ama 60 ninba oo meel ku ay iska samayn karaan ma xeer bay nuga yeelan dariiq baa loo maraya soo galay golaha guurtida waxa ansixinaya saddex meelood oo meelood waxa soo galay maxkamadda uu soo gudoominaysa golaha guurtida xeer ku qorayaa waxa soo dhalina meesha ma yaalaan haddii yiraahdaan 60 qof inta meel ku fariisan ama 50 qof ku ridayna madaxweynaha waa ay sharciga jabiyaan oo ay ka beeraan dariiqii maxaa gacanta ugu jira awoodii ma haystaan dowladii ma haystaan wax ma xukumaan ayaga lacagta laga goyn kara guriga lagu fuuda marka dadka xeer baa u dhaxeeyo sharci u dhaxeeyo baa socon marka islaamka sharciga number of haysto ku tooto garan ka beebus sheegay suuqa kan leeyahay xaafadaha iyo waxa xaqiiqda hore eedeymo ballaaran baad jeedisay xogtan adigu halkeed ka keentay maxaa cadeymo aad u haysaa waa nin mas-uul dowladeed oo xil weyn u haya bulshada qaladkana dee biniaadamku uu galaa waa qalad uu galay oo la og yahay oo kuwa dowladda ku jira iyo kuwa mucaaradkuba iyo isaguba ay og yihiin haddii aan ka been sheegayo isi tiraada qabta haddeeyo kuma dhaco marka waa arrin dee uu galay oo aan ku dulmayn anugu oo jirta sidaan ku helaana xogta aan ummad badan baa keento ku xiran oo aan ka helaa golaha maxamuud xaashi baa xukuumada tiri golahana sida bulshadu wada og tahay waxa la doortay Faratoon oo shir gudoomiya warkani muxuu yahay markaad sheegaysaa maxaad ku cadeynaysaa maxaad u cuskatay golaha markii hore xirsi baa xukumayay oo ku dul xukumayay in qaliif imikana maxamuud xaashi baa ku dul xukumaya Faratoon waxaan ku cadeynayaa markii hore maxay leeyihiin in qaliif joogo banaanka lagu shirin jirnay maxamuud waa kii TV laga tusiyay soo banaanka ku dhaarsanay iska daa cid kaloo nin ay ku murmeen xaflad aroos ayuu ku yidhi haylaha haddii ila lagu ansixiyo guulma haylaha libu lagu ansixiyo inaad la hadashabaad sax maaha because goli baa ku fadhiya isagaa ku faanaya golaha inuu haysto oo dadkan joogay xildhibaanaduna isaga ay xareysan waana taariikhda midii kuwaad ay saas dhacdo marka maxamuud isagaa golihii maamulaya baqageliyey Faratoon keenay way muuqataa waa mahadsantahay gudoomiye kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Caydiid gudoomiyaha ururka Suti Gaashaan waa mahadsantahay gudoomiye